ma doonayo inay qorraxdu u soo baxdo isagoo nool. Amarkaas waxaa bixiyey madaxweynihii hore ee Ciraaq Allah u naxariistee Saddam Hussein si loo daldalo wiilashii uu sodonka u ahaa ee qabay labadiis gabdhood. Markii la dilay kadibna mid ka mid ah karfantiisa waxaa lagu qoray shahiidul qadab ama shahiidkii cariisnaa. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay baxsashadii ninka labaad ee ugu awoodda badnaa Ciraaq kadib Saddam Hussein iyo qaabkii loo dilay. Shakhsiga aan ka hadlayno waa Hussein Kamil al-Majid, mararka qaarna loogu yeeri jiray madaxweynaha yar. Sidoo kale Barazan Tigriti ayaa mar ku tilmaamay jaahil doqon ah. Sidoo kale Taariq Casiis ayaa isna ku sifeeyey jaahilkii damaca badnaa. wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aadka ugu dhowaa Saddam maadaama ay u dhaxday gabadhiisa weyn ee curadda ahayd Raqda, waxaana marar badan ka maseeray labadiisa wiil ee Cuday iyo Qusay. wuxuu ahaa Kamil Hussein al-Majid waxayna ilmo adeero ahaayeen Saddam Hussein. sidoo kale wuxuu ahaa shakhsiga labaad ee ugu awoodda badan Ciraaq. Kamil wuxuu dhashay sanadkii 1954 wuxuuna ku dhashay magaalada Tikrit. qoyskiisu waxay ahaayeen kuwo danyar ah kana shaqaynayay beeraha. waxaa dhalay Kamil Xasan Majid oo ay ilmo adeero ahaayeen Saddam Hussein. sida ku xusan diiwaanka, Hussein Kamil ma dhammaysan waxbarashadiisii dugsiga hoose wuxuuna uga haray galaaska afraad. wuxuu isku dayey sidii uu shaqo u heli lahaa si uu qoyskiisa u caawiyo, balse waa uu ku fashilmay kadib markii uu waayey wax shaqo ah. balse isagoo 14 sano jir ah ayaa waqtiga iyo waayaha waxay u saamaxeen in uu qayb ka noqdo xukunkii Ciraaq kadib markii Saddam Hussein iyo Axmed Xasan al-Bikri oo hogaaminayay xisbigii Bacad ay afgembi kula wareegeen talada dalka Ciraaq. markaas Saddam waxaa loo doortay in uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. 6 sano kadib, gaar ahaan sanadkii 1974, Hussein Kamil oo markaas ahaa 20 sano jir ayaa ku biiray hay-adda sirdoonka Ciraaq, waxaana loo qaatay in uu darawal u noqdo hay-addan maadaama uu ahaa shakhsi aan khibrad lahayn islamarkaasna aan haysan shahaado dugsi sare ama jaamacadeed. 2 sano kadib, Saddam Hussein ayaa soo saaray wareegto ahayd in qoyskiisa loo dhiibo maamulka ciidamada ilaalada madaxtooyada, waxaana sabab u ahaa in Saddam uu ahaa shakhsi aad u shaki badan oo aan cidna ku kalsooneen. sidaas darteed, Hussein Kamil sanadku markuu ahaa 1976 wuxuu xubin ka noqday ciidamadii ilaalada Saddam Hussein. muddadaas Hussein wuxuu muujiyey daacadnimo aan la sifayn karin, wuxuuna ahaa midka uu ugu kalsoonida badan yahay ilaaladiisa Saddam Hussein ilaa laga soo gaaro sanadkii 1979 markaasoo Saddam sida la sheegay uu afgembi hoose oo aan dhiig ku daadan xukunka kalena wareegay Axmed Xasan al-Bikri. Saddam wuxuu bilaabay in uu Hussein Kamil si degdeg ah ugu dalacsiiyo, gaar ahaan dhinaca darajooyinka ciidamada. intaas kadibna wuxuu noqday ilaaliyihiisa gaarka ah, mar walbana dhabarkiisa ayuu taagnaa jiray. Hussein Kamil wuxuu ahaa mid fuliya amar walba oo uu Saddam soo saaro isagoon ka labalaynin. xitaa haddii uu ka dalbado in uu toogto dadka ugu dhow waa uu fulin jiray. wuxuu ahaa mid aqbala oo fuliya amar kasta. taasna waa midda uu kalsoonida uga kasbaday Saddam Hussein. sanadkii 1980 Saddam wuxuu Kamil u wakiishay in uu aasaaso ciidamo qaas ah oo ilaaliya amnigiisa. Hussein Kamilna ciidamadaas wuxuu intooda badan ka soo xulay walaalihiis, qaraabadiisa iyo dadka aadka ugu dhowaa. 3 sano kadib, gaar ahaan sanadkii 1983, Saddam wuxuu go'aansaday in uu sii adkeeyo kalsoonida uu ku qabay Hussein Kamil, wuxuuna u guuriyey gabadhiisa weyn ee Raqda. inkastoo fikirkan Saddam ay ku mucaaradeen inta badan raggii aadka ugu dhowaa iyo labadiisa wiil, sababtuna waxay ahayd in Hussein Kamil uu ahaa shakhsi aan waxbaran oo jaahil ah, keliyana uu ahaa shakhsi ku wanaagsan fulinta awaamirta. yacni wuxuu ahaa yeesman, ama waxay Soomaalida ugu yeerto nacamleeye. balse madaxweyne Saddam Allah u naxariistee dhag jalaq uma siinin dhammaan talooyinkii loo soo jeediyey, wuxuuna dhammaystiray inuu isku guuriyo gabadhiisa Raqda iyo Hussein Kamil. kadib markii uu guursaday gabadha madaxweynaha, Hussein Kamil waxaa u furmay albaabada horumarka, taasoo u sahshay inuu siday biriqda oo kale ugu dalaco darajooyinka sarsare. wuxuu ka dalacay maamulaha ciidamada khaaska ah ilaalada Saddam, waxaana madax looga dhigay ciidamadii ilaalada kacaanka. waxaa kaloo madax looga dhigay warshadda soo saarta dareyska ciidamada Ciraaq. kadibna wuxuu noqday wasiirka warshadaha soo saara qalabka dagaalka, ilaa markii dambe uu noqday wasiirkii difaaca Ciraaq. inkastoo uusan ahayn shakhsi khibrad u lahaa arrimaha ciidamada iyo militariga, soona bareen cilmigaas, laakiin waxaasoo dhan muhiim uma ahayn Saddam Hussein. keliya wuxuu doonayay qof daacad u ah amarkiisana qaata. Hussein Kamilna wuxuu ahaa xilligaas shakhsiga ugu daacadsan uuna ugu kalsoonida badan yahay Saddam, ilaa heer uu gaaray in loo ogolaado in uu soo saaro amaro isagoona fasax weydiisan Saddam. waqtigaas Hussein Kamil madaxtooyada Ciraaq waxaa looga yaqiinay madaxweynaha yar.
sidoo kale wuxuu saadaam u ahaa gacantiisa midig. wuxuu kala qayb qaatay caburintii shiicada sanadkii 1991 kuwaasoo xilligaas bilaabay kacdoono ka dhan ah maamulkii saadaam xuseen. xilligaas xuseen kaamil wuxuu noqday ninka labaad ee ugu awoodda badan ciraaq. amarkuu doono ayuu bixin jiray, qofkuu doono ayuu xiri jiray oo dili jiray. ma jirin cid la xisaabtami jirtay. xitaa waxaa mar lagu eedeeyey in uu dilay qaar ka mid ah saraakiishii ugu sarsaraysay ciraaq. sababta ugu dilayna ay ahayd inay amarkiisa ka hor yimaadeen. tallaabadaas uu ku dilay saraakiisha waxay aad uga caraysiisay saadaam qudhiisa, balse wax tallaabo ah kama qaadin. taas beddelkeedana wuxuu karaameeyey oo uu duubtooda ka qayb galay saraakiishii uu dilay kaamil. waxaana raadiyaha iyo telefishinka ciraaq laga baahiyey in saraakiisha ay ku dhinteen howlgallo militari oo qaas ah. intaas kadib xuseen kaamil wuxuu aasaasay boqortooyo ganacsi oo isaga u gaar ah, wuxuuna tartan ganacsi la galay coday oo ahaa wiilka saadaam xuseen. waxaa kaloo xilligaas suuqa soo gashay in xuseen kaamil uuba noqon doono ra-iisul wasaaraha ciraaq, waxaana arrintaas aad uga xanaaqay ugana carooday coday saadaam. waxaa kaloo la sheegaa in mid ka mid ah kulamo uu saadaam la lahaa wiilashiisa uu aad ugu qayliyey coday. wakhtigaas coday wuxuu dareemay in shakhsiga aabbihiis macluumaadka qaldan uga gudbiyey uu yahay kaamil. coday wuxuu go'aansaday in uu ka arguto xuseen kaamil almajiid. habeen ka mid ah habeenada oo ay qoyska saadaam lahaayeen xaflad casho ah, coday wuxuu la joogay wiilka ay walaashiis raqda u dhashay xuseen kaamil oo lagu magacaabi jiray cali xuseen kaamil. intaas kadib waxaa goobta soo galay xuseen kaamil. coday wuxuu bilaabay in uu aflagaadeeyo, wuxuuna ku sigtay in uu dilo oo uu nafta dhaafiyo. xuseen kaamil maadaama uu si fiican u yaqiinay dabeecadda coday oo ahaa manaxe aan jixinjixin, waxaa qalbigiisa galay cabsi iyo walwal. wuxuuna durbadiiba gudagalay in uu samaysto ilaalo u gaar ah si uu isaga ilaaliyo coday. laakiin sida ay sheegaan falanqeeyaasha ciraaqiyiinta, xuseen kaamil oo ahaa doqon damac badan ayaa qorshihiisa ilaalinta naftiisa waxay la gashay inuuba damaaciyo inuu afgembiyo saadaam xuseen. sababtana uu ahaa inuu heerkan oo dhan gaaro. xilligaas ciraaq waxay ahayd mid dhexda uga jirtay mushkilada dhaqaale maadaama maraykanka iyo reer galbeedka ay saareen xayiraado dhaqaale. waxaa kaloo xilligaas bilowday olole lagu doonayey in saadaam uu xilka isaga dego si ciraaq looga qaado xayiraadaha dhaqaale. kaamilna waxaa u sawirmay in uu yahay beddelka ugu macquulsan ee saadaam, balse qofna lama wadaagin qorshihiisa dhagarta ahaa. sanadkii 1995 maalin guud ahaan shacabka iyo dowladda ciraaq ay u dabaaldegayeen maalinta guusha, xuseen kaamil wuxuu xaaskiisa raqda, walaalkiisa saadaam kaamil iyo xaaskiisa rana oo iyadana uu dhalay madaxweyne saadaam uu ku qanciyey in uu madaxweynaha ka soo qaatay fasax si ay isaga iyo qoyskiisa ugu soo nastaan dalka Jordan. maadaama xilligaas garoomada diyaaradaha ciraaq oo dhan ay xayiraad saarneed, xuseen kaamil xaaskiisa, caruurtiisa iyo walaalkiisa iyo qoyskiisa waxay qaateen 3 gaari oo Mercedes ah, waxayna ka gudbeen xuduudka ciraaq iyo Jordan. dhinaca kale, maadaama labada dal xiriirkooda uu aad u wanaagsanaa xilligaas, sidoo kale xuseen kaamil oo ahaa shakhsi saameyn weyn ku lahaa maamulkii saadaam, waxaa xuduudka uga hortagay oo soo dhoweeyey saraakiil sarsare oo ka tirsanayd boqortooyadii Jordan. waxaana markii uu gaaray caasimadda uu si toos ah ula kulmay boqorkii Jordan, boqor xuseen kaamil wuxuu boqorka Jordan u sheegay in uu soo goostay, islamarkaasna uu doonayo in uu noqdo ninka bedeli doona saadaam xuseen. waxaana lama filaan noqotay in boqorka uu soo dhoweeyey damaca xuseen kaamil, wuxuuna dejiyey isaga iyo qoyskiisaba qasriga haashimiya. intaas oo keliya maahane, boqorka Jordan wuxuu dhowr mar diiday codsi uga yimid saadaam xuseen oo ahaa inuu ku soo wareejiyo xuseen kaamil iyo labadiisa gabdhood. intii uu Camaan ku sugnaa waxaa sii weynaaday damacii xuseen kaamil, wuxuuna iska dhaadhiciyey oo sawirtay in dowladaha reer galbeedka ay taageeri doonaan go'aanka uu ku soo goostay, islamarkaasna ay u sharaxi doonaan ninka bedeli doona saadaam xuseen. wuxuu kaloo iska dhaadhiciyey inuu yahay shakhsiga keliya ee awoodda u leh inuu mideeyo safafka mucaaradka ciraaq, islamarkaasna ay isaga taageeri doonaan. waxaana isagoo taas ka duulaya, isaga iyo walaalkii saadaam kaamil ay shir jaraa'id wada qabteen xubnihii mucaaradka ciraaq ee Jordan ku sugnaa. wuxuu faahfaahiyey damaciisa. wuxuu kaloo sheegay in uu hayo xogo ku saabsan hubkii kiimikada ee uu saadaam haystay si uu u soo jiito dareenka reer galbeedka ayna u taageeraan. xilligaas waxaa Jordan booqasho ku tegay coday saadaam xuseen si uu ula kulmo labada gabdhood ee la dhashay ee ay qabeen xuseen kaamil iyo saadaam kaamil. wuxuu doonayey in uu ku qanciyo inay dib ugu laabtaan Baqdaad, balse xuseen kaamil ayaa diiday in uu la kulmo, wuxuuna u ogolaaday keliya in uu taleefanka kala hadlo isagoo goobjoog ah. sheekada xuseen kaamil iyo in uu isaga baxsaday ciraaq waxay noqotay dhacdadii ugu weyneed ee xilligaas saaxada carabta.
laakiin waxay maalmuhu iskuraanba xuseen kaamil wuxuu dareemay xaalad go'doon ah inuu ku jiro, maadaama ay aamini waayeen mucaaradkii ciraaq ayna u sheegeen inuusan waxba ugu duwanayn saadaam xuseen, waxa uu doonaya ay tahayna keliya sidii uu awoodda ula wareegi lahaa. sidoo kale dowladihii reer galbeedka ayaa diiday in ay la macaamilaan oo aysan ku kalsooneen. waxay kaloo aamineen in soo gooshashadiisa ay tahay masraxiyad uu ka dambeeyey saadaam xuseen, maxaa yeelay xilligaas suurtagal ma ahayn in shakhsi sidaas ah uu ku dhiirado in uu khiyaano saadaam xuseen. haddaba waxaa sidaas ku soo afjarmay riyooyinkii iyo damcii waalnaa ee xuseen kaamil, waxaana maalin maalmaha ka mid ah uu isdhahay ka faa'iidayso dalab ugu yimid safiirkii ciraaq ee jordan, kaasoo u soo bandhigay xuseen in isaga iyo qoyskiisa ay dib ugu laabtaan baqhdaad. taas beddelkeedana uu madaxweyne saadaam xuseen u fidiyey cafis. sidoo kale safiirka ayaa xuseen kaamil ku yidhi, adeerkaa saadaam labadiisa shaarbood ayuu qabsaday, wuxuuna ballan qaaday in uu idin cafi doono haddii aad dib ugu laabataan ciraaq. taasna waxay xuseen kaamil ku dhiirgelisay inuu qaato mid ka mid a go'aanadii ugu layaabka badnaa, weliba uu aamino ballanqaad ugu yimid saadaam xuseen oo uu aad u garanayay in uusan cafin qof khiyaanay. ficil ahaanna xuseen wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa iyo kan walaalkiis ku qanciyo inay dib ugu laabtaan baqhdaad, balse walaalkii saadaam kaamil waa uu diiday inuu dib ugu laabto ciraaq, balse xuseen ayaa isagoo ku handadaya qori ku qasbay inuu raaco. bishii Februari 1996 iyagoo wata 3 gaari ee Mercedes-ka ahaa ee ay ciraaq uga baxeen ayay dib ugu soo laabteen. waxaana xuduudka kala qaybiya ciraaq iyo jordan ku sugayay coday saadaam xuseen iyo hooyadiis saajida, waxayna soo dhoweeyeen raqda iyo rana, wayna diideen in ay salaamaan xuseen kaamil iyo walaalkiis saadaam. xuseen iyo walaalkiis waxay sii wateen safarkoodii dhinaca dhulka ahaa ee ay ku tagayeen baqhdaad, halka raqda iyo rana la soo saaray diyaarad helikobtar ahayd, waxaana weheliyey coday iyo hooyadood saajida. xuseen kaamil durbaba waa uu dareemay waxa sugayey, balse wuxuu isku qanciyey in xaaskiisa raqda ay awood u leedahay inay aabaheed saadaam ku qanciso inuu iska cafiyo saygeeda. ugu dambeyntii xuseen iyo saadaam kaamil waxay gaareen qasrigii ay ka deganaayeen baqhdaad, halka xaaskiisa raqda iyo walaashii rana ay gaareen qasriga madaxtooyada, halkaasoo uu ku soo dhoweeyey madaxweyne saadaam. waxaana markii ay halkaas gaareen si aad ah u canaantay oo ku qayliyey walaalkood coday, balse waxay u sheegeen in iyagu aysan waxba kala socon safarka iyo qorshayaasha xuseen kaamil, loona sheegay been oo la khiyaanay. maalinkii ay dib ugu laabteen qasriga madaxtooyada, maalinkii ku xigay madaxweyne saadaam wuxuu u yeeray mid ka mid ah qaadiyaashii baqhdaad si uu labadiis gabdhood uga furo labadan qaa'in ee dhabarka ka toogtay, waa xuseen kaamil iyo saadaam kaamile. ficil ahaana waa uu ka furay labadooda. intaas kadib saadaam wuxuu kulan la qaatay qaraabada kaamil, wuxuu ka dalbaday xilligaas inay iska mayraan ceebta ay u soo jiideen labadan qaa'in, wuxuuna isaga baxay kulanka isagoo aad u caraysan. waxaana kulanka ku haray oo ehelka xuseen kaamil u sharaxay qaabka ay ceebta isaga dhaqayaan labadiisa wiil ee coday iyo qusay. bal qiyaas maxaa loola jeedaa ceebta iska dhaqa? wax kale ma ahan, waa inay gacantooda ku dilaan xuseen kaamil iyo walaalkiis saadaam kaamil, haddii kalena iyaga ayaa lala dili doonaa. maalinkii xigay waxaa guriga ay deganaayeen u dhaqaaqay ciidamo ay hogaaminayeen fa'ri tigriti iyo walaalaha kale ah rukaan arsuuqi axmed iyo barzaan. sidoo kale waxaa ku jiray ciidamo uu hogaaminayey jamaal tigriti oo qabay xala saadaam. amarka saadaam xuseenna wuxuu ahaa in xuseen kaamil iyo saadaam kaamil laga takhalluso ka hor inta uusan waagu baryin, balse waxaa dhacay wax khilaafsan wixii uu saadaam amray, maadaama qaar ka mid ah ehelka xuseen kaamil ay u soo dusiyeen faahfaahinta kulankii ay la qaateen saadaam, islamarkaasna ay guriga ugu geeyeen hub iyo rasaas badan, taasoo keentay inay saacado badan iska difaacaan ciidamadii soo weeraray, dhowr askarina ay ka dilaan. taasna waxay ciidamadii soo weeraray ku qasabtay in ay adeegsadaan qoriga RPG. waxaa la gubay gurigii ay ku jireen, balse xuseen kaamil waxaa u suurta gashay inuu isaga baxsado guriga oo uu galo guri kaloo ku dheggan. laakiin lagama harin oo waxaa daba socday ciidamadii sirdoonka ciraaq, waxayna gubeen gurigii labaad ee uu galay, taasoo xuseen kaamil ku qasabtay isagoo dhaawac ah inuu bannaanka u soo baxo. waxaana dilay oo dhammaystiray iyaa tigriti, kaasoo in ka badan 30 rasaas jirkiisa la dhacay. wixii markaas ka dambeeyey waxaa mustaxiil noqotay in qof uu ku dhiirado inuu khiyaano saadaam, maadaama uusan qofkaas badbaadi doonin xitaa haddii uu ka mid yahay ehelkiisa. kadib markii lasoo gebagabeeyey howlgalka, ehelka xuseen kaamil waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegayaan inuu helay
abaalkii oo mudnaa. Warbixinteena xigta hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan uga hadli doonaa kulankii dhex maray saadaam xuseen iyo ra-iisul wasaarihii hore ee gumaystaha israa'iil ariel sharon, kaasoo saadaam ku soo booqday intuu uu xabsiga ku xirnaa una xirnaa ciidamadii maraykanka. haddaad ka heshay warbixintan, like saar muuqaalka si ay dhiirigelin noogu noqoto. sidoo kale subscribe saaro janalka si ay kuu soo gaaraan warbixinadeena xiisaha leh. mahadsanid.